muuqaal ku saabsan Sheekh Qardaawi. Halkani waa kanaalka dunida. Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi waxa uu dhashay 9 bisha 9aad 1926. Waxa uu ku dhashay magaalada Saftaadroob oo ku taal wadanka Masar. Qardaawi waxa uu Quraanka xafidaa isagoo gaadhin 10 sano jir. Waxa uu ku biiray jaamacadda aadka u caanka ah ee Al-Azhar Sharif, halkaas oo uu markuu ka qalin jebiyay uu ahaa ama uu galay kaalinta labaad ee boqortooyadii Masar ee xilligaas. Mar walba waxa uu ahaa ka ugu horeeya dadkii ama ardaydii uu wax la dhiganayay. Sanadii 1953 ayuu noqday macallin bara ardayda luqadda Carabiga. Aabihiis waxa uu dhintay isagoo jira 2 sano. Waxa uu soo koriyay adeerkii. Waxaa la xidhay Qardaawi dhowr jeer. Waxaa lagu xidhay ka mid ahaantii uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii Ikhwaanul Muslimiin. Markii ugu horeysay waxaa la xidhay sanadii 1949 oo ahayd xilligii boqortooyada Masar ka talinaysay. Kadib 3 jeer ayaa la xidhay xilligii madaxweyne Jamaal Cabdinaasir. Sanadii 1961 ayuu Qardaawi u safray dhanka dowladda Qatar. Halkaas ayuu ka noqday maamulaha Maxadka Diinta ee Uhwaan ee ku taal wadanka Qatar. Sanadii 1977 ayuu Qardaawi waxa uu helay dhalashada wadanka Qatar. Sheekhu waxa uu guursaday 2 dumar. Ta koowaad waa Masaariyad, magaceeduna waa Iscaad Cabdi Jawaad. Waxa uu guursaday 1958 waxayna u dhashay 4 gabdhood iyo 3 wiil. Ta labaad waxay ahayd Algeria oo waxay isku barteen xilli uu wax ka dhigi jiray wadanka Algeria. Magaceeduna waa Asma. Waxay u soo shaqeysay telefishinka caanka ah ee Al Jazeera oo ka sii dayn jirtay barnaamijka la yiraahdo Dumar. Hadda waa madaxa culimada Islaamiga ah ee caalamiga ah. Waxa uu sheekhaasi ku caan yahay ka hadalka arrimaha Islaamka sida Falastiin, Soomaaliya, Afghanistan oo aanu marnaba afka ka dhigin. Sheekhu waxa uu aad uga qayb qaatay kacaankii lagu riday Maxamed Xusni Mubaarak. Waxa uu qaatay jaaisad Bangiga Islaamka ah ee horumarinta Islaamka 1990, jaaisada Boqor Fahad 1993